kalabar dameeraha caalamka ayaa halis ugu jira dabargo kadib markii uu soo batay adeegsiga Shiinaha ee dameeraha. Shiinaha ayaa dameeraha u adeegsada daawo ahaan, waxaana uu maqaarka dameeraha ka sameeyaa daawooyin. Warbixinno ayaa sheegaya in 4.8 milyan oo hargaha dameeraha ah ay sanadkii isticmaalaan shirkadaha daawooyinka soo saara ee dalka Shiinaha. Daawada hargaha dameeraha waxaa lagu daweeyaa xanuunada qufaca iyo hargabka dalka China, waxaana si weyn looga digayaa inay yaraadaan tirada dameeraha ku nool dunidan. meelaha ugu badan ee shirkadaha Shiinuhu ka dhoofiyaan dameeraha waxaa ka mid ah qaaradda Afrika. Shiinaha ayaa 10kii sano ee ugu dambeysay dardargelinaya galaangalkiisa Afrika ee dhanka ganacsiga isagoo tartan xooggan kula jira Mareykanka. shirkadaha Shiinaha ayaa adeegsada shakhsiyaad u soo iibiya dameeraha aan jiranayn. Warbixinadu waxay sheegayaan in aan loo baahnayn dameeraha naafada ah iyo kuwa xanuunsan. 28% tirada dameeraha dalka Brazil ayaa hoos u dhacday tan iyo 2007 waxaana saameeyay shirkadaha Shiinaha ee dhoofiya dameeraha. sidoo kale 37% tirada dameeraha dalka Botswana ayaa hoos u dhacday.